السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idin wadaa qado yar oo iska fudud maasha Allah aad guriga ku samaysan karto. fadlan channelka dad ku cusub tahay subscribe-ki ii saar, haddaad hore ila joogteen like-ti ii saar, gambaleelkana furo, commentigan ii soo qor. halkan waxaan ku haystaa baradho, xabad baradho waaye, iyo 3 galaas oo bariis ah iyo basashaas yarta ah. digsidu ii kulaanaysaa, digsiga aan ku karin lahayn waa kana, digsiga yariista ah waaye, aad ma weyno mana yar, waan iskala dhaxaad. alxamdulillah, basashii waa soo duwanay, xabad bisay bahadiyada laftirkeeda. marka waxaan idin dhahay ayaamahan warba siyaasadii waxaas anagu iskuma fiicnin. badeeni baa la qaatay, waa la kireeyay, waxaas magaalooyinka ay warbaahinadu ay isdhexmarayaan. anagu badeeni iib ma aha, badeeni iib ma aha, kiran ma gasho. amxaaro way ogaa 7-7kii wax ku dhacay, iyada laftirkeeda markhaati waaye. dadkii hilib ceyriinka baraan nahay, waxaan u sameynayaan inaa anaga aan isjeclayn, inaa anaga aan qabyaalad ahaan isku riixno, inaa anaga aan qof waliba tuuladiisa u xirtay maamul gooniya u samaystay, inaa anaga laba eray markay dowlad federaalka Soomaaliyeed ay na tiraahdaa aan dhahan waan goosanaynaa, inaa waxyaalo badan anaga dowlad dalkeena dan ugu jirin inaan sameynayna arkeen. waxay kaloo arkeen Soomaalida meelaha laga soo maray inay yihiin qabyaalada, qoloqola loo kala jaray, hebelo caalam, hebelo midoob, qaramad midoob, hebelo kan. waxaasoo dhan waa mal abaal. waxay rabaan inay dalkan burburiyaan maahan inay wax ku dhisaan ma rabaan. dabcan wadankeen inta shidaal ku jira maanta ma dhabo. waxay ku tartamayaan laftirkooda ku tartamayaan mid waliba sidoo anaga noo caawin lahaa. iyaga marka waxay ku leeyihiin anaga na caawinin, anaga saan idin yeelin. waxay ula jeedaan waxaasoo dhan waa been. waxaa la rabaa in laga faa'iideysto. turkida anaga ugu soo dhaw, anaga waxaa leen waxbay noo tartay oo laamiyo waxaas noo dhistaa. sidaasay tahayna kheyraad bay la baxaan. marka dana gaara dalkan laga leeyahay. dadkii Soomaaliyeedna waxa weeye reer hebel, reerkan, reer maamul, reer waxaasaa maanta socota. anaga dalkeena anagaa burburinay, maxaan dowlada shisheeye u eednaa? anaga qof kasta markuu dhaho waxaan ahay naag laandheera ah, anigu waxaan ahay nin laandheera ah, adigu laangaab baad tahay, adigu cadcad baad tahay, adigu jareer baad tahay, adigu eelaay baad tahay, adigu habar gidir baad tahay, adigu daarood baad tahay, reer ooy ayaa tahay. waxaasaan ku jirnaa. marka caalamka ayagu waxay ku tartamayaan siday adduunka ugu tiri lahaayeen dayax-gacmeed, siday dalkooda u horumarin lahaayeen, siday dalalka caalamka ay ugu sareen lahaayeen, siday ammaanka dalkooda u hagaajin lahaayeen. waxaasay ka fakarayaan. anagana waxaan ka fakarnaa reer hebel sideen uga guuleysanaa, reer hebel imisaan ka dilnaa, reer hebel imisaan ka kufsanaa, reer hebel imisaan ka dhacnaa. waxaasaa anagana haysta. alxamdulillah, hadda dhalinyarta haddana saasay tahay anagoo noocaas ah. markii la dhaho Soomaaliya taaka ka mid baa la qaatay, waan kacaynaa. waxyaalaha horta ilaahay nagu gargaaray ayaa waxay tahayba aqli xumo baahsanaa nagu jirta maahane damiirkeeni waa joogaa. damiirka Soomaali ay leedahay waa joogaa. iyagu dowladaha caalamka uma hiriyaan. dalkeen taaka yar haddii la qaato 5 jirka Soomaaliya jooga wuu qaalinayaa. maanta ugu dambeysay midba wuxuu yiri anagu waan yarnahay, dagaal hadda ma geli karno. gabdhaheen Soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay noo guursadaan, inay noo ogolaado inaan guursano 4 xaas. bal fiir meeshuu xal ka raadinaa. war waxaa meelay kaga fikir la sidee baan waa dadkaan hayti aan iskaga dhicin lahayn. qooqa wadahay naag baa laga fakarayaa. a'uudu billah. war anaga dalkeen ma dhabo. anaga madaxdeena kii madax soo qaadaba nin xuno kursi doon ah aan rabin ninkan kaleente wuxuu sameynayo ayaa wuxuu magaalada la soo gelayaa waxyaalo aan macquul ahayn, hadhowna qabiilkiisa ku taageeraya. markay arkaan Soomaalidina hal dhinac bay u badan yihiin. markay arkaan laba qof haday ku amaanayso maxay isku yihiin iyo muxuu kan yeelay isma dhahayo. adigana asna dhinaciisa wuxuu ka galayaa amaantii.
marka anaga dalkeen sidaan ku hagaajin lahayn ma dhawo sidaan dalkeen u horumarin lahayn ma dhawo sidaan dalkeeni aan anaga u maamulan lahayn ma dhawo markaan kasoo tagno reer hebel markaan kasoo tagno tuulo hebel markaan kasoo tagno hebel hadda waxaan leeyahay waayadii hore qabyaalad way jiri jirtay weligeedina jirtay Soomaalida dad qabyaalad ku dhintay ahay xaasnimada ma aqaan meel inooga timide waxaasay lahaayeen saas taweeroonid hadda laakiin social media baa la keenay kommentiyada la isku caayaa hebel gobol baa tahay hebel kan baa tahay waxaasoo kale naga daaya anagu waa yaryarnahay anaga 30 jirada wixii 30 ilaa 40 uu yaryahay wixii 50 iyo wixii ka sii weyn maahay dawladii siyaad bar markay taaganay dadkii joogay oo kale inta way dhigi karaan waxa way wax walba ay qaban karaan laakiin anaga hadda dadkii soo kacayaan nahay horta ma buu jirtay 20 15 ilaa 30 inta u dhaxayso anagoo kaleente waxa way xaalkeena ma badawaba marka waxa loo baahan yahay siyaasadda adinka aad meelaha la taagantihiin oo anaga sida weyn naga dhaafa dalkeena sida anaga u maamulan lahayn in la iska kaashado banaanbax weyn la qabto waxa idin dhahay aan dawladdan Itoobiya amxaarada sida anaga 77 ugu celin lahayn yaahe aan u sii leen hilibkooda cayriinka waa inaan falkeeda galnaa falkeeda waa in la galaa dawladdan Itoobiya waligood bay Soomaaliya cadow ku ahayd maanta waxay nooga faa'iideysanayaan walaalahina Somaliland oo xumaan yar tabanaysa anagana intaas oo sano dawlad walba timaadan waxay isku daydaa inay raali geliso waxay isbuuci hore ugu dambeysay shirka la qabtay xitaa la yiri ra'iisul wasaaraha la idin siinayaa aqalka sarata iyaga maamulo saasay tahay way ku madax adeegayaan ayadoo sidaas ay jirto wada hadalku uu socdo oo waxaan ku dhahiil iyo hool la daw taagan yahay ayay wali xumaan tabanayaan isaguna meel hoos oo naga soo maray dadkaas oo naga soo maray waxa weeyay Soomaaliland waa dad dalkooda jecel yahay laftirkooda maadaama xanuun ay naga tabanayaan daraadeed bay waxaan u sameeynayaa maahe iyagu laftirkooda nimankan waxay maagan yihiin way ka dharagsan yihiin balse waxaan u baahanahay dadkaas sidaan ku shaafin lahayn yaa anagu dhaxdeynina aan iska diiwaan aan wadwadno qabyaaladii waxay tareys male guriga ku samaysan kartaa waxay tareys malahan halkan waxaan ku soo darsanayaa saafaraankaas la hormariyo soo dhameystay bariiska waa xoogaa waan jilciyay waxaan roo ilma yar inaan sii furfurka saa'idka markii marti iimaanayso kaleentii markaan dad waaweyn oo aan ugu talgalo kaleentaan sameeyaa hadda waa iska normal xoog ma jelecsano cayriin waxa furfur saa'idna maaha marka ilmaha yarka ugu talgalay marka hooyta waxa weeye cuntooyinka laftirkeeda waxa waa inaa xoogaa cusba laga yareeyo saliid laga yareeyo hawshu ma dhaw Ilaahay noo barakeeyo wadka marka waxa idin dhahay Soomaaliya dalkan aan badbaadino anaga badbaadi karno dadkeeni naga waaweynaa ayagoo nabad arkay wallaahi waxaan ku anaga ka akhri leh waan fiirshay marka anaga Ilaahay garabkeen hagal waa dadaalnaa wallaahi waa dadaalnaa marka kalluunka la duwaya saliid waa ka dabka soo saaranay ayantaan wallaahi waxaan idin dhahay wax ma soo gelinin xoogaa waan iska yar caajisnaa saasay tahay fiiskay uu yaryahay war video ugu dhamaysta bismillah war hadaadan rabin xitaa video xaasnimada iska daayay inta shid ka tag waliga saas ma lagu dhahay maxaan sameynaa fiiska yar gaalku aad ogtiin intaasoo kun buu ka rawaa anagana wax yar wax ugu badan daawada waxa weeye 150 bay 150kii waxa mareynaa 50 bis 100 baa naga dhacday ee gambaleelka furta oo meesha subscribe-ka saara war hadaad igu cusub tahay subscribe-ka saar meeshaan ku tilmaamaya waa calaamad gaduudan dhagka si geeska kala taawo waa gambaleelkii suulka kor taagan like-ti war anaga waxaan idin dhahnay waa dadaalaynaa hada fiiri anaga maanta ma sha Allah Ilaahay barakeeyo anaa duubanay anaa wax walba anaa sameynay waxaan ku dhahay keligii bas u taagan marka like-ta aad iga baqiishid soo xaasidnimo ma daalkiisu eberka maadan dhigin day walaal kor iyo qaad barbahalkan walaa hawshiis way ma dhawee fiidiyoyada raaxad ku daawataan laakiin like-tan waad naga baqiishaan dadka markii YouTube ku jira waayadii hore waxay dhigi jireen like-tan naga baqiishaan waxaas baan fahansan laakiin hadda waan ogaaday
haddaan ogaado qofka intuu soo daalo wix markuu soo geliyo ama wax yar haduu arko ama wixii intaasoo qof intay fiirstaan laba qof oo kale inta ay laagti saarto waa xanuun soo maaha kalluunku waa kas qaleyl waaye saliid ma lahan bariiskeena guranaynaa qadadan maasha Allah special waaye waxaan ku dhahay ii sheer garee asxaab badan u baahanay dad yar baa ugu xiran waxaan idin dhahay waxaan soo gelinayaa kareemooyin la isku qurxin lahaa waxaan soo gelinayaa qurxin kale inta dabiici guriga aad ka heli kartid waxaan soo gelinayaa waxaan ku dhahayaa warxad dhar qurux badan inta idin soo gelinayaa idinka waxaan idin dhahay channelka maskiinka ah kor u qaad war channelkan waa maskiin ba iska leh gabar yar oo maskiin ba iska waa maskiintii allama maqashay waa aniga channelkani kor u qaad adiga iska leh kor u qaad Soomaaliya channelka idinka leeyahay kor u qaada war gabdho badan ay ugu xiran gabdhahaas gabdho sharaf badan waaye gabdho qiimo badan waaye wiilasha way adeeg ku jira iyaguna waxa leeyahay walaal qiimo badan baa tahay waxaan idin dhahay hal mar hadaad igu turtaan labada key saddexda key lugta aan la galo afarta key lugta la galo shanta key lugta la galo waawa kaala arag waan farxi lahaa si fiican baan u hurdi lahaa yaahay wallahi waxaan idin dhahay waa sameyn kartiin maanta sameyn kartaan bariya sameyn kartaan saadan baa sameyn kartaan caawa sameyn kartaan waxa aadan sameyn karin male lugahaad iiga dhigantiina iiga foqa channelkan hawada geliya kor u qaada